بسم الله الرحمن الرحيم دمان أمد الصوماليات جودة يدبت بميل كستا جوجان وأن وذا سلام يا وأنا جواه أحمد نور محمد عبد الله بلندرو ودين درو وأنا جو هري إن كجب بلنقاضي إن شمبري وبدنان عن إذن كسو جدبين دونه قبي aan ummadda Soomaaliyeed meel kasto joogaan ba ku xusuusinayo caruurta agoonta oo runtii dhibaato weyn ay haysato sababta ugu ballaaranna ay ahayd colaadihii dhibaatooyinkii wareerkii dhexdeena dadkeenu isku laayeen runtiina hooyadu ay nugul tahay haddii cunuga aabbihii uusa jooginna ay dhibaato iyo rafaad korintiisa ay ka marayso carruurtaas agoonta ah meel kasta oo Soomaaliya ay joogtaba haddaan doonayno ilaahay inuu noo naxariisto haddaan doonayno ilaahay inuu adduunna uusan ku ceebayn aakhirana naarta aan ku mudan in aad iyo aad loogu dadaalo shakina igama jiro dawladda dhexe ee Soomaaliyeed inay tallaabooyin ka qaaday hase yeeshee tallaabooyinkaas ha la sii badiyo dardar culus ha la geliyo waayo ubadkaa Soomaaliyeed ilmaha Soomaaliyeed hadhow waa kuwii waddanka wax ka noqon lahaa marka waqtiga ay dhibaatada ku jiraan in laga saaro lagana fekero isla markaasna aqoontooda daryeelkooda waxbarashadooda habayntooda nidaamkooda nin kasta ee Soomaaliya shacabka ah in qorsho iyo balaan la degsado afartan guryaha in la iska warqabo ubadka jooga iyo dhalinyarada jooga iyo kuwa dariiqyada ku daadsan kulli wixii liita hal loo helo ogow dawladdu waa shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad waxa u dareemeen ha arkeen carruurta Soomaaliyeed oo darbiyada ku silicsan ee daadsan iyo dhibaatooyinka jira gabaygii aan ugu talagalay ayaan hadda idiin soo gudbinayaa waayo waxaan rabaa arrimaha noocaana camal taariikhi inay ka harto hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 hoy xukun iyo garsoor baa bulshada lagu xadeeyaadhee wadagii xadgudubnaye miyaan xaaja laga qaadan xeerkii ilaah soo dhigiyo xarafna raacaynin xakaarkiyo dhibtay soo mareen maata lagu xoonshay carruurtan xajiin uga tagnaa weli xamaaraysa agoon xoonsan oo naga dayacan wada xanaaneeya agoon xoonsan oo naga dayacan wada xanaaneeya xilligay orgoodeen jabhado nala ku soo xooray xeryaheenni soo wada galeen nagu xasuuqayay xagaafyada intay aabba badan lagu xabaalayay xantiiroo dhashii uu ka tegay
yaa cidlada xooran xamdi mahad kuwii hooyadood yara xanaanaysay agoon xoonsan oo naga dayacan wada xanaaneeya agoon xoonsan oo naga dayacan wada xanaaneeya xoolahaa sarii baa la gelin lagu xareeyaa dhe xabsi baa daryeel looga dhigay laguna xayn daabay bahallada xamaartiyo intii xoog ku soconaysa xusul duub waxay ugu jiraan xaynay dabar goyndhe bal xakaarka ubadkeen ku dhacay xaashe ka ilaasha bal xakaarka ubadkeen ku dhacay xaasha ka ilaasha agoon xoonsan oo naga dayacan wada xanaaneeya markay xoqotayo gaaja wada xooday xakaarkiiyo dhibtii ay qabeen yaan xanuunsaday dhe xirsow gabaygan waahil dhasheen lagu xaqsooraayo xeebaan dhowayn baan murtidan xiito iga qaaday xargihiiyo hoggaanadan u diray waa xil wada saaran aqoon xoonsan oo naga dayacan wada xanaaneeya agoon xoonsan oo naga dayacan wada xanaaneeya xisnin lihi dhugmada waa badshaa waa xisaabtami dhe xaaladihii la soo maray nin garan xumaha noo geystay xunba waa gurtaa kii caqli leh xabadna aan beelin xumaatadan la baday ubadkayaga xidid ha loo siibo xaajiyo ka bidnaasig wataas xaaluf soo mariya xajiyo kobtii naaska wada xaaluf soo mariya agoon xoonsan oo naga dayacan wada xanaaneeya agoon xoonsan oo naga dayacan wada xanaaneeya suugaantu xagla laabataye xooxdaniga hooya isku xira awood gudaha iyo tii xad kala joogta xanuunnadii colaaduhu dhaleen xaaqa naga saara xurmadiyo dhaqaalahay buteen siiyo xubintooda xisaabtama dadkaygow dhammaan waa xil wadareeddhe agoon xoonsan oo naga dayacan wada xanaaneeya gabaygaas waxaa idiin soo jeediyey axmed nuur maxamed cabdille ilaahii weynaa oo waaxidka ahaa ha geliyo dareemayaalkiinna waxgarashadiinna caqligiinna qalbigiinna isu naxariista ilaahay baa waxa uu yidhi irxamuu man fi lardi yarxamakum man fi samaa'i isu naxariista oo u naxariista kuwa dhulka jooga kuwa samada jooga aan u naxariista ogaada samada kuwa jooga waxaa loogu naxariisanayaa samadu jannaday ku taallaa jannadu samaday ku taallaa sidaa darteed ilaahay kulligiinba jannahayni geliyo dareenkaas yeesha garashadaas yeesha xisaabtankaas yeesha nebigeennana wuxuu yidhi calayhi assalaatu wasalaam naftaada waxaad la jeceshahay walaalkaana la jeclow dhibaatada ugu weyn ee bini aadan qabsataa adduun dhabarkii ku qabsataa waa baahi waa gaajo waxaad ini leeyahay dadaala
dadaala ubadka yaryarka ah ee maanta cidlada ku daadsan ilaahay hayni tusiyo ilaahay haydi tusiyo ilaahay haydi tusiyo sidaad wax ugu qaban lahaydeen oo u dhaqaalayn lahaydeen wax ay tahay adduunya ma laha aakhiro u wada tabaabushaysta in ilaahay horti aad ka heshaan jannada ilaahayna ha iniin garto jannada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد نور محمد عبد الله نبضي ولا ليال